kadib guusha weyn ee dalka Carbeed uu soo hooyay su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay maxaa dhici doona haddii Sacuudigu uu ku guuleysto koobka adduunka sanadda 2022 ee Qatar ka dhacaya. haddase maxaa ka soconaya Sacuudi Carabiya heerkee ayay gaarsiisan tahay xafladeynta iyo u dabaaldegidda guusha xulka Argentina laga gaaray. waxaase ka jira amarka ka soo baxay maxkamadda boqortooyada guusha qaranka darteed ee ka farxinaya dhammaan muwaadiniinta iyo shacabka ku nool Sacuudiga. xulka kubadda cagta Sacuudiga waxay guul weyn oo 2 gool iyo gool ka gaareen xulkii loo saadaalinayay inay ku guuleysan doonaan koobka adduunka ee Argentina. guud ahaan baraha bulshada waxaa qabsaday sawirrada farxadda xidigaha xulka qaranka Sacuudiga iyo guuldarrada soo gaartay laacibiinta Argentina. si gaar ah sawirka Messi oo hoos eegaya isla mar ahaantaana u muuqanaya mid fadhiya iyo 2 xidig oo muslimiin ah oo sujuudaya kana soo jeeda Sacuudiga ayay u badan tahay in qoyska boqortooyada ay taalla ka dhigan doonaan. gool rigoore ahaa uu dhaliyay kabtanka xulka Argentina Lionel Messi oo ay raaceen 3 gool oo Argentina ay dhaliyeen wadartuna ay noqon lahayd 4 gool. 3 ka mid ah garab dhaaf ayaa lagu tilmaamay, halkooda gool kaliya oo ay haysteen waxaa qaybta nasiinada loo bedelay mid ka hooseeya calanka Sacuudiga kadib markii ay 2 gool dhaliyeen weeraryahanada xulka Sacuudi Carabiya. qaybta nasiinada kadib 2 gool oo cajiib ay heleen wiilasha Sacuudi Carabiya. markii ciyaarta dhamaatayna waxaa dabaaldegyo waaweyn ay ka bilowdeen magaalooyinka waaweyn ee Sacuudiga. sidoo kale taageerayaashii ka soo jeeday dalka guusha gaaray ee ku sugan Qatar ayaa farxadooda ku muujiyay garoomada iyo weliba wadooyinka dalkaasi. gudaha Sacuudiga meelaha fagaarooyinka ah waxaa laga dareemayaa saxmad iyo weliba in loo dabaaldegayo farxadda Sacuudiga ay ka gaareen xulka Argentina. waxaana farxaddaasi sii qurxiyay markii maxkamadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ku dhawaaqday in maalinta berritaa ay tahay fasax qaran kadib guushii wiilashooda ay ka soo hooyeen ciyaartoodii furitaanka koobka adduunka 2022. qoraal ka soo baxay maxkamadda boqortooyada ayaa lagu yiri amar ka soo baxay boqor Salmaan bin Cabdilcasiis berri oo Arbaca ah waxaa loo aqoonsaday inay noqoto fasax guud dhammaan xarumaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo ay ku jiraan xarumaha waxbarashada iyo weliba goobaha kale ee ganacsiyada yeelkeeda taasi waxay ka dhigan tahay in caawa oo dhan aan laga seexan doonin Sacuudi Carabiya aadna loo xafladeyn doono. adiga ahaan ma ku faraxday guushii ay Sacuudiga ka gaareen xulka qaranka dalka Argentina? maxaadna u rajeynaysaa xulka qaranka Sacuudi Carabiya kuwaasi oo ka yaabsaday dhammaan daawadayaasha la socday ciyaartii ay kala direen xulka qaranka dalka Argentina?